jacaylku muxuu imagay muxuu xagadii hogaashay muxuu habeniya maalin muxuu dima ii horseeday muxuu habeniya maalin muxuu durbani. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي ذا قالي وايد السلام ميلو بودني تعالى كجوكتان كسود وايد channel كنا عايشة لايف ستايل لايك سبسكرايب شير يلا جي لو بين أصحابتي ذا قالي محيدين وضعي عاشة سنواركتين وحيدين وضع ميرة بالكده جيست عايشة لايف ستايل. أصحابتي ذا قالي وحامر كهر آدي ومهد علينا يا دتك أصحابتي وحران channel كنا كحران آدي يا دينكي مهد علينا يا waana waxaad tihiin dad aad iyo aad u wanaagsan maasha Allah tabarakallah. dadka inta aan hadda aan soo gudbin oo dal soo taliseen waa dad taladiina ku qancay asxaabteeda qaaliga oo aad iyo aad u qaatay weyn idin soo salaamayay salaantaas oo ii soo mariyeen aniga inaan idin soo gudbiyo idinka waayo ana idin dhaxeeyo maahan waa inaan idin soo gudbiyo manaha qaani ugu tahay maahan wada salaanta dadka idin soo gudbiyeen aan dhinac idin kala mara asxaabteeda qaaliga. markaas asxaabteeda waxay weydi salaamayeen dadkaas aad la soo taliseen la taliskaas aad kula taliseen gabadha hadda u dambeysay iyo wixii aan soo talinay aad iyo aad ayay ugu qanceen wayna ku farxeen waxayna dhaheen asxaab aad u fiican ayaa leedahay Caaisha maasha Allah tabarakallah. asxaabteeda anigana sida ay dhiirigelisaan sida aad ila soo xiriirtaan aad iyo aad u mahadsantihiin inta la talinta ii soo gudbiso ee mar walba ila soo xiriirta ee caafimaadka iyo wareysata ee ila sheekaysato aad iyo aad ayaan ugu farxaa asxaabteeda mar walbana waa ku farxaa waana idinku farxaa aragtidiinana waxay ii tahay anigu waa farxadeeda asxaabteeda qaaliga oon jeclahay maantana maxaa idin wadahay la talis leeyahay maahan sheekada ilaan maalinta jaanis aan leeyahay waa inaan ka faa'iideysta haddaan ka faa'iideysan waay ka waranay asxaabteeda maxaan u gudbinayaa in asxaabteeda aan usoo gudbiyo maysan ahayn aad iyo aad u mahadsantiin asxaabteeda qaaliga hadda aan u gudugalo sida baayadan qaaliga gabar walaasheena aan la soo xiriirtay waa la taliskaas oo la joogo way walwal igu reebay oo inta badan dad badan aan arkay abaayadaas la talisi badan maadaama ii yaalaan waxay tahay waa kuwa aniga walwalka igu reebo aad u badan waxay tahay walaasheena qaaliga waxay naga soo codsatay waxay dhahday Caaisha Life Style maxaa rabaa inaad u gudbisid asxaabtaada qaaliga idin la wadaaga asxaabtaada iyo adigaba oo sida ugu dhaqsaha badan la ila soo taliya maadaama ay saas iga soo codsatay asxaabteedana waa inaan idin soo gudbiyaa sida ugu dhaqsaha badan insha Allah ku kalena waa idin soo wada gudbin doonaa asxaabteeda wax walba waqtiga cariirigu ah maahane waxaan jeclahay wax walba inaan dhaqso jig idin soo sii kan inta la idin keenaa rabaa laakiin waqtiga ay saamaxeen asxaabteeda qaaliga marmarka oo waqtiga ay saamaxana waa idin keenaa maahano asxaabteeda qaaliga hadda idin guda kalahe sida aan idinku soo gudbin lahaa la taliski asxaabta gabadhan walaasheena Soomaaliyeed ah waxay tiri waxaa la qabaa ay tiri muddo hadda sanad ka soo wareegatay waxay dhahday sanad muddo ay ka soo wareegatay ayaan adiga ninkana waxay tiri aniga jaceyl aan u qabo kumaanan guursanin shalay toole aabahay iyo hooyadee ayaa igula taliyeen ayaga ila jeclaadeen ayaga ninka ii keenay dhahday markaas waxay dhahday gabadhaas walaasheena maadaama hooyadee aabahay ii keeneen waa maadaama waalidkayga amarkiisa aanan diidi karin waxay dhahday saasaan ku yeelay waalidkayga amarkiisa marka waxaan la guri galay tiri nin aan dabcigiisa aqoonin nin aan dabeecadiisa aqoonin nin wuxuu yahay aan aqoonin oo hadiyo koow iyo isbarasho cusub aan la guri galay oon guri la galay dhahday markaan la guri galay oon guri la galay waxaan kala kulmay tiri nolol farxad leh waxaan kala kulmay tiri soo ninka qalbigayga soo jiitay naxariis badan waxaan kala kulmay tiri farxad aad u badan waxa maasha Allah waxay dhahday sida qoys walba oo Soomaaliyeed oo isku cusub ay wada dhaqmi jireen caadi waa wada dhaqanay tiri maasha Allah aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay noloshiis ugu faraxsanaa waxay tiri markaas aan ugu faraxsanaa waxay dhahday muddo hadda 4 bil ka soo wareegatay dhahday uur ayaan yeeshay tiri walaaca noqday walaacyaan la xanuunsaday markaan walaaca noqday waxay tiri ninka isbedel ayaan ku arkay isbedelkaas oo waxaan ku arkay tiri qof walba oo dumar ah usan u dul qaadan karin maxay tahay sababta usan ugu dul qaadan karin waxay tahay uma dul qaadan karo waayo waxay tiri ninkeyga uu iska baxa habeenka qaar waxay dhahday iima soo hoydo gurigaba ma yimaado habeenka qaar waxay dhahday naagu iska aaday tiri naaga loo wadaa qof walba damiirkiisa ma siinayo tiri inuu ninkeeda naaga la socdo
oo dadka ii soo sheegaan dadka warkooda si igu soo sheegayeen tiri markii dambe waa qaadan waay waxaa is dhahay tiri ninkaaga ama lagu diraya ama ninkaaga oo dhaxdiina balaayo laga dhigaya markii dambe anaa soo arkay tiri ana indhahayga ku soo arkay tiri ninkii naaga dhaxda ugu jiro naaga la sheekeysanayo aan ku soo arkay tiri guriga imaaday tiri markaan weydiiyay oo dhahay walaalo maxay tahay arintaas aniga waa xanuunsanahay waa ogtaan xaalkayga suu yahay maxay tahay waxa igu sameynaysa markaan dhahana wuxuu igu dhahay tiri fiiri dhageyso walaale xanuunkan iyo waxaana sheegaysa horta inaad iska yeelaysid ma ogtahay dadka waa wada dhalaan walacna way noqdaan waxaan iyo iska daboojadan iyo iska yaalyaalku igu dhahay tiri anina xaalkayga ilaahay yaa ogay tiri meesha ugu dambeysay ee iga maraysaa tiri gabadhan walaasheena waxay tiri marka habeenkii waxay dhahay telefoon loo ku hadlaa naag loo la hadlaa waxay tiri fadhiga loo fadhiyaa ani waxay tiri sirrta intaan ku daalo bal saaxi ninkaaga u tagaan dhahay tiri ninka markaan u yimaado qolku aaday dhahdo ha iga soo dabagelin maxaa ii daba taagan tahay maxaa meel walba iigu daba socotaa maxaa sahan iigu taa oo ii dhahay tiri asxaabteeda qaaliga markuu saas dhahay tiri aniga waan iska aamusay dhahdo iska seexdaa subaxiyaan soo kaca quraacaan u diyaarinaa quraacdaadana ma rabiye isku daldal adiga la dhahay tiri isku aruuri adiga intee saan iskugu aruurinay tiri ana cunto ma cunay anoo sanka ii xiran yahay sanka saas iigu xiran yaan kariyaa tiri xaalkayga duugi cunto kari maba dhihi lahayn dhahdo markaas waxay dhahdaa anoo sanka saas iigu xiran yaan u kariyaa markaan dhaha ninkan quraac ma rabo cunto ma rabo iska jeefana subaxi anoo jiifa darkin oo kicinaayanaaya dhageysa maxay tahay cuntadana karin maxaa u karin weyse saan maxaa u yeeli weyse walaalo marka kale waa daadiyay marka aniga aan xanuunsana oo is dhahay iska dhaaf ma soo jeclaato cuntada na leysiyad baa tahay saan baa tahay kana tahay kii kala tahay oo dhahay tiri markaas asxaabteeda qaaliga waxay tiri ninka 4 bilood ugu dambeysay anigana aan walaaca ahay waxaan ku arkay tiri isbedel dabeecad gooni ah naaga u wado balaayo shukaansi telefoon loo ku hadlaa markaan walaalo uma dul qaadan karin aday ku taala hadaadan hadaladan ku hadlaa u dul qaadan karin saaxiib ama jikada tag ama isku shagal ama qolka aad maxay ii ag fadhiisaan igu dhahay tiri asxaabi qof damiir lahanahay naag ninkeeda jecelaanahay oo ka ilaashanaysa balaayada waraabaha magaalada dudaayay yacni waraabaha waxay ka wadaa naagaha waxay tiri maxaan sameeyaa asxaabteeda qaaliga ila soo taliya bal waxaan sameeyaan lahay anigoo walac ahay walac xanuunkiisa qof walba uu ogyahay waxa ay ugu darsamay tiri confuse kale iyo maseer iyo rafaad waxaas ay ugu darsamay tiri inaan waashtaba wax yar ay iga dhimanay tiri oo maryaha tuuro يا أصحابتي إلى صوت تلي أصحابتي عايشة لها في ستيل وحن قعد سنايا إن أنا لسه تلسين أو تلو نكسن أنا قسيسين برنامج كاس يعني لا تلين تاسيته وحن رجينا يا قبل سولاشينا هنا تصفي عنو لسه تلسين وحن رجينا يا إن هذا الونكسن كل هذا الشين أنا أو هذا اللحن أو قلبي هذا داوع هذا سوقرين ويقفك بالآذان كمركة سوقرتي هذا القلب يسداوع qalbigiisa asoo qof qalbigiisa gubanayo marka ku dhaxday hadal xun qalbigiisa uu si dhaawacma markaas inta ka dhaawacina qalbiga hadal wanaagsan u soo qoro ee ku faraxda gabadhaas walaasheena qalbiga aan u dajin aan la hadal ani waa la hadlo wixii talahna waa u gudbi bal idinkana tiina idinka raba asxaabteeda qaaliga taas meesha si ku saaf jarantay waxa idin haya asxaabteeda qaaliga mid kale ayadana maxay tahay tan gabar walaasheena naga soo codsatay saane u dhacaysa ayadana waxaan rabaa inaan nala socotiin sidii u dhacaysa waxay dhahday gabadhan walaashan gabar waaye gabar ahay dhahday weli ma guursan waxay dhahday hal nin ayaan jeclahay ninka aan jeclahay waxay dhahday ima jeclo maxay tahay sababta aniga waxay tiri waa ninka iigu horeeyaan ba jeclaadaba hay sababta maxay tahay aadan ku jecleen waxay dhahday waxaa la ii sheegay tiri inuu naaga qabo naaga inuu qabaa la ii sheegay tiri dada ii sheegay tiri wili dad aan isku fiicanahay ii sheegay tiri inuu naaga qabo markaas waxay tiri waa iska aamusay waa ka aamini waayay asagaan weydiiyay tiri naag ma qabo ilma iyo naaga may hay u sheegin oo dhahay tiri markaas asxaabteeda qaaliga asagaan jeclahay waxay tiri telefoonka marka qaar soo joogaba zam waa iga dansadaaga marka qaar soo joogaba asagaa qadka ka baxa 3 bil 4 bil marka la waayay haddana waa kana oo aniga aan iska iloobo oo nin kale iska shukaansaday tiri waa soo laabtay walaalay raaleeho walaalay sansame aynu maxay tiri qalbigayga ma aqaan asagu raacsinay tiri asagaan ba jeclahay qalbigayga waxay tiri asaga maahane nin kale ma meeqanina diyaar iyo markaan guursis dhaxabo asaga aan waayay waxay tiri
asaga le meesha hoosta iga soo galaa ila soo xiriiraya markuu asagoo hoosta iga soo galo ila soo xiriira nimanka dhan meeshaan ku daynaya tira asaga leen la socdaa asaga leen jeclahay asaga ima jeclo waayo qof hadduu i jecel yahay 3 bilood ama 4 bilood ma waayin taleefankiisa naaguu qabaa naagtaasayta kule markuu naagta aad uu taleefanka iga dansana marka kalena taleefanku iga soo wacda asxaabteyda qaaliga maxaa asxaabta Caaisha Lifestyle maxay igula talin lahaydeen maadaama gabar ahay ee dhibaatadaas haysata niman badan ee diyaar yihiin ee daba socdaan ee jecel yihiin ee rabaan inay guursadaan ee mar walba idhahaan يعني مرة بإلهان نوصل قري كالا إسكورسنا ديارنا هم حتى وقتي أنا أسكلو منيسي قبل يراتاي ما رقص قورستي عملوا حتى أنا ما بقصو جيدا نينكا سانجعلها نينكا نصاصو يقو سمينايا محان سميا أصحاب عايشة لايف ستايل إلى صوت هليا مركز تاس قبرس ولا شيء انت سيرتي نقصو قارسيسي انت سيرتي أي نوصل شيغتي وحاربا وحر الناس كدرة قيبر قيب بدل الناس كدرة سيادي دين كل سو تلسين إلا إن جانسكا aad u yar yahay xilligan jaaniska helayna ka faa'iideysto way maadaama mashquul iska yahay hooyanaha ogtihiin marka asxaabteyda qaaliga waxaan rabaa inaa la soo talisiin asxaabteyda qaaliga waa ogahay inaad si fiican kula soo talinaysiin waa ogahay in hadallo wanaagsan kula soo talinaysiin waxaad tihiin dadan aad iyo aad u jeclahay waan idin xiisaa mar walba oon saan camal isku aragno ma jeceli inaan kala dhamaan inaan isla joogna leen jeclahay asxaabteyda laakiin danaa tirimahan oo mashquulkaas ka jiro markaas mashquulka jir darteeda markaan is aragnaba waxay daqiiqado kooban kadib oo la kala dhamaanayo insha Allah asxaabteyda qaaliga intee balano ee jannatul firdaws balano assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh jacaylkum wuxuu imaaday muxuu xagadii hogaashay muxuu habeniya maalin muxuu dima ii horseeday muxuu habeniya maalin